خلافتين سيد ku xalin karaysa mushkiladda waxa weyn inaad ay karayso 3 step marto wixii qiimeyntii la guliyaa tiraado okay qofkan mar rabo inaad iska ignore gareyn raba inaad la sheekaysto mar raba I don't want to talk I don't want to speak just wax raba astaaba wuxuu raba the best ma cadooteen adigu mushkiladda ma imateen haddaanad rabin wax wanaaga soo daweygeed alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawo Amar podcast muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sidaad u xalin karayso mushkilad kasta oo ka hor imata afar nooc ay dadku qaybtamaan markay mushkiladda xalinayaan iyo afar step oo ka caawinaysa si aad u noqon lahayd qof mushkilad kala xaliya inta ay muuqaalka guda gelin waxaan ka codsanayaa haddaanad nagu jirin nagu soo biir haddii afarta nooc ay dadku qaybtamaan ay ku xaliyaan mushkiladda waxa jira qaybta koobaad oo qofku levelka ugu hooseeya ilaa levelka ugu sareeya marka qaybta ugu hooseysa waxa weyn inuu ignore gareeyo qofkii uu mushkiladda la lahaa ama dhibto la lahaa oo dhado qofkan ma rabo inaan la hadlo inaan maqla ma rabo I don't want to speak waan bolo gareynaya qaybta labaad waxa weyn qayb dad saddexaad waxa weeyaan qof sameeya yes wax kaas isagoo mushkiladii og inuu qofkan kale ka qaldan yahay baa wuxuu aaminayaa inuu isagu qaldan yahay ornay okay adiga iga saxsan waa saxsan tahay okay yes ka kale inuu qofka mar walba adaa saxsan qaybta saddexaad waxa weeyaan qayb la compromise inuu qofka okay aan wada gallo waxaan ka tanaasulay waxba ka tanaasulisa aan wada heleen asoo compromise oo kale kamid family oo kale laba qof ay staafaysa haddii aad tiraado okay maadaama adigu sax u arkayso taasana aqbalaya tan aniga iga aqbal dhexaad weeyaan qaybta ugu sareysa afraadna waxa collaborating inuu qofku وقفك له شيء إن تدحض لي ما دوكله this is the highest level سلام مقصود قاعدة ما كنت جنح صارتها ما كنت entrepreneur تاي وحضبها هنتاي إن أتبرته mind set كا collaborate قفك السيد له شيء كريسة سيد واحد دحض وسوق قاعدة كريسة تكون بدنا قفك ياه وان دريم كريسة وتو قيبتها صومر إن مركز قارك ما كان مشكلة على كتر هذا أوكي قفك المرة باين ناس كأنه رجلين ربا إن الله شيء كسر مرة I don't want to talk I don't want to speak just واحد ربا وضيع سمينا وعندما قف قلب بعض واحد عادي تسأل قصة كارش كينيا بس نسبات نار كناي أي واحد على مشكلة ده سكوا خبصنا رايت واحد هاي تنا أحسن مشكلة دي أباته سو وانو يعني بلا ما يلنا ميل بافريسنا so the way I do you حوين okay سيد wax arkaysa ina dhageysto kala qofka oo yahay okay qaabkeedu arkaysa hagee mushkilad ka imanaysa tan wuxuu dhahay saasiya seed arkaysa aad ugu fadhiisanay x y y soo halkan iyo halkaas aan lagu rabaa inuu ganacsigu soo socdo anigu waxa dhahay taasaan u arkay so you see labadii dhinac baan arkay aniguna eeg dhinacan ka arkay isaguna dhinacu ka eegay ka bacdina collaborate sameeyna okay seenu sameyn karayna ganacsigeenu inuu negative level socdo maxaa uu ka talaasuli karaysa ka bacdi qofku raali gelin soo dhinaciisa ka bixiyo aniguna raali gelin ka bixiyo garanaysa dad ganacsato tahay ama tahay qof businessman waxa leeyahay qof walba pride iyo ego bully markaad ganacsi ku jirto noqoto waa inaad ego-gaaga meel iska dhigto waa afarta step aad ku xalin karayso mushkilad kasta waxa weyn koo marka koobaad waa inaad collect data waa inaad urursato maxaa dhibta keenay maxaa mushkiladda keenay information ka dhaba waa inaad horta xaqiiqada ogaato markaad qualify samayso conflictigi maxaa sababay si intee la egtahay imse qiimee la egtahay waxaan baalkayga waa inaad samayso okay 11 mushkiladan wax intee lag bay ugu soo kordhinaysaa haddaan qofkan dhibtan la yeesho ma wax faa'iido keenaysa waxaan ku doodayo ama waxaan aan qalad ka arkay in kaga soo horjeedo ma yahay wax faa'iido keenay 11 haduu aad muhiim yahay adoo arkaysa waxaan saxsan tahay inaad dhinacaga la qaado tan waxa sameyn mushkiladii qualify sameysay oo quantity-gana aad eegtay labadii dhinac baad ka eegtay muhiimadeeda iyo hadafka intee la egtahay iyo qiimaha ay la egtahay agtaada eegtay dan u yar qof labaad qofka labaad u yaraysa maxaa weydiinaysaa just u bandhigsay mushkiladu jirto ka bacda hadda ka siyaasadan arkaya ninkan partnerka isku leeyahay dhibtaas keentay how do you see fikirkiisa eeg inta qofkii kale ula tagay dan markuu qofkii aad ka qaato fikirkiisa labaad iyo fikirkaaga dan qofkii la kulan sidii aan sameeyno kale collaborate na sameeyso kale qofkii la fariiso tirada okay this is the way gaano arkayo siyaasadan arkaya qaladna u sameynayso maybe si aan xalin karayna kale salahan oo kale bisiyung ama relationship ko kale ta qof kula jirto aad xiriir kula jirto kale was after was khilaafteen sidoo ku xalin karaysa mushkiladda waxa weyn inaad ay karayso 3 step marto wixii qiimeyntii la guliyaa faa'iideyntii la guliyaa qofkan shaygan isku qabsataan dan aad qof saddexaad oo kugu dhow oo trust sameeyso oo ku kalsoon tahay oo la taliya I hope inaad leedahay qof mentor qof la sheekaysato oo wax walba la qaybsanto qofka la qaybsan ka bacdi eeg dan waxay noqonaysaa inaad xal fudud u keento sababtoo ila ka kala duwan baad sameyn karaysaa high level inaad gaadho nolosha hadaad rabto meesha ugu sareysa inaad gaadho noqotana waa inaad yeelan karayso mindset ka sameyn karayso qofka kale meesha uu ka eegayo aad arki karayso ka bacdi ishaada aad noqon oo ego iyo bareerka aad meel iska dhigto si aad guul u gaadho waxaan rajaynayaa inuu ka caawiyo afartaas step sameynayso